waxaynu qaybteeni hore mareynay iyadoo wada hadal ugu socday ninkii dhalinyarada ahaa iyo nin odayha oo markaas oo ag fadhiistay. waxa uu akhriyay afkaartay ayuu yiri ninkii dhalinyarada ahaa isagoo naftiisa la hadlaya. wuxuuna ahaa ninkii odayga ahaa mid akhriyaya oo hadba rogaya buuggii weynaa. wuxuuna arkay ninkii dhalinyarada adhijiraha ahaa in ninkan odayga ah uu xidhan yahay dhar qariiba. wuxuuna u ekaa inuu carab yahay. arrinkanina waa shay caadi ka ah mandiqada waxayna taariifa u jirtaa Afrika masaafo loo socdo dhowr saacadood. waxaana u dhexeeya gacan biyood kaasoo qofku uu kaga gudbi karo laash yar. wayna yimaadaan carabtu magaalada si ay baahiyahooda uga iibsadaan. waxayna arkaan dadku iyagoo qaab cajiiba u tukanaya. maadaama Andalus ama Spain ay u dhowdahay waqooyiga Afrika oo ah buqcad islaam. waxa fudud sida qofku ku tago iyadoo wadanka Spain uu ahaa dhul islaamku qarniyo badan ka talinayay. halkii ayad ka soo jeedaa yacni magaaladii ayuu weydiiyay ninkii dhalinyarada ahaa odaygii. meelo kala duwan ayuu ugu jawaabay ninkii odayga ahaa. wuxuuna ugu halceliyay ninkii dhalinyarada ahaa. suuragal ma aha in qof dhowr meelood ka soo kala jeedo. anigu waxaan ahay nin adhijir ah. suuragal way tahay inaan meelo kala duwan joogi karo marba waqti. laakiin waxaan ka soo jeedaa hal meel. waana magaalo u dhow qasri qadiima halkaas ayaanan ku dhashay. hataa aynu nidhaahno anna Saalim ayaan ku dhashay ayuu ugu jawaabay odaygii. muu garanay ninka dhalinyarada ahi halka ay ku taala Saalim laakiin wuxuu doorbiday inaan weydiin si aan jaahilnimadiisu u fashilmin. wuxuuna in cabbaarah ku mashquulay barxaddii ka horreysay halkaasoo dadku marna ay tegayaan marna imanayaan ayna ku mashquulsan yihiin danahooda. wuxuuna mar kale weydiiyey ninkii dhalinyarada ahaa odaygii isagoo doonayay inuu calaamad ku sheego si uu u garto. waa sidee Saalim? isna wuxuu ugu jawaabay waa siday markii horeba waqtiga intiisa badan ahayd. taasina ma ahayn wax calaamad ah oo tusinaysa Saalim. laakiin wuxuu ogaa inaanay Saalim ka oolin Andalus sababtoo haddii kale uu garan lahaa. maxaad ka qabataa Saalim ayuu haddana mar kale ninkii adhijiraha ahaa su'aalay odaygii. aad ayuu u qoslay odaygii markan wuxuuna ugu jawaabay maxaan ka qaban lahaa? waxaabaan ahay boqorkii Saalim wuxuuna isagoo hadalkiisa sii wata yidhi aniga waxa la yidhaahdaa boqor Saadiq. adhi intee leeg ayaad haysataa ayuu odaygii weydiiyey ninkii dhalinyarada ahaa. in igu filan ayuu ninkii dhalinyarada ahaa ugu jawaabay odaygii. odaygii wuxuu doonayay inuu wax badan ka ogaado noloshiisa. wuxuuna ku yidhi ninkii dhalinyarada ahaa hadday sidaa tahay dhib ayaa jirta. mana awoodo inaan ku caawiyo intaad aaminsan tahay inaad haysato adhi kugu filan. intaa kadib wuxuu ninkii dhalinyarada ahaa dareemay dhib maadaama uusan wax kaalmo ama caawimo ah weydiisan odayga. sababtoo ah odayga ayaa ahaa kii bilaabay hadalka cabitaankana weydiisay buuggiisana ahmiyadda ama danaynta u muujiyey. isii buuggayga waxaan aadaya adhigaygii howlahaygana inaan qabsado ayaan rabaaye ayuu ugu jawaabay ninkii dhalinyarada ahaa odaygii. isii 10 meelood oo meel waxaan ku bari doonaa sidaad u raadsan lahayd kansigaaga ama hantidaada qarsoon ayuu ugu halceliyay odaygii ninkii dhalinyarada adhijiraha ahaa. ninkii dhalinyarada ahaa isla markiiba wuxuu xasuusay riyadiisii. si lama filaan ah ayay wax walbaaba uga caddaadeen. sababtoo ah islaantii kamay qaadan wax bushqaayad ah. balse odaygii wuxuu nasiib u helayaa inuu ka qaato lacag badan beddelka inuu siiyo warbixin been ah. laga yaabaa inuu isna qashari yahay waxaana suurtagal ah inuu sawjkeedii yahay ayuu naftiisa si hoose isula hadlay. dhanka kale isaga oo aan wax hadal ah oo dhan ayuu odaygii foorarsaday oo laan ka soo qaaday dhulka oo bilaabay inuu wax ku qoro ciiddii meesha barxad ah ee ay fadhiyeen. isla markii hoos u foorarsadayna waxa laabtiisa ka soo dhacay shay iftiimaya oo aad u dhalaalaya. iftiinkaasoo ninkii dhalinyarada ahaa ka dhigay mid aan si fiican waxba u arkayn.
laakiin si dhaqso ah oo yaab leh marka loo eego nin da'diisa ah ayuu odaygii si degdeg ah jaakadiisii ugu qariyay laabtiisa. markii dambe wuxuu awooday inuu si cad u arko waxa uu odaygu qorayo. wuxuu ka akhriyay ciidii barxadda ee hortiisa fidsanayd magaca aabihii, hooyadii iyo ciyaarihii carruurnimadiisii. habeenadii qababa ee madarasadii uu yaraantiisii dhigan jiray. dabadeedna wuxuu kaloo akhriyay taariikh nololeedkiisii ilaa waqti xaadirkan uu hadda joogo. wuxuu kaloo akhriyay waxyaalo uusan weligiis cidna u sheegin, sida waqtigii uu aabihii ka xaday qori uu ku ugaadhsan jiray. anigu waxaan ahay boqorka Saalim, ayuu yidhi odaygii. bal muxuu kula dhurmayaa boqor nin adhi jir ah, ayuu ninkii dhallinyarada ahaa weydiiyey odaygii. waxaa jira sababo badan, laakiin aan dhahno waxa ugu muhiimsan ayaa ah inaad awooddo inaad gaadho oo aad sugto halyeennimadaada shakhsiyadeed. ninkii dhallinyarada ahaa muu garanayn waxa uu la jeedo odaygu halyeennimada shakhsiyadeed. dabadeed isagoo sii wato odayga hadalkiisii ayaa uu yidhi, waa waxa aad mar walba ku hamiyi jirtay ee aad jeclayd inaad samayso. qof walbaaba wuu yaqaanaa waxay tahay halyeennimadiisa shakhsiyadeed marka uu dhallinyarada yahay. inta nolosha lagu guda jiro xilligaa wax walbaaba waa cad yihiin, wax walbana waa suurtagal. qofna kama baqayo inuu ku riyoodo ama ku hamiyo wuxuu jecel yahay inuu sameeyo noloshiisa, balse marka waqtigu socdo oo sii durkaba waxa soo baxa xoogag qarsoon kuwaasoo ka qayb qaata sugidda suurtagalnimada xaqiijinta halyeennimada shakhsiyadeed. hadalka odaygu wax macaan ah umuu lahay ninkii adhi jiraha ahaa, laakiin wuxuu doonayay oo u damcay inuu ogaado waxa ay yihiin xoogaga qarsooni si uu uga yaabsado hadhow gabadhii ganacsaduhu dhalay. waa awooda laga yaabo inay u muuqdaan inay xun yihiin, balse dhab ahaantii waa ta ku baraysa inaad ka dhabayso oo aad rumayso halyeennimadaada shakhsiyadeed. waana ta qaabaynaysa garaadkaaga iyo doonistaada. sababtoo ah waxa caalamkan aynu ku noolnahay jirta xaqiiqo weyn oo ah qof kasta oo aad tahay iyo wax kasta oo aad samayso marka aad doonto inaad ficil si badhax tiran u samayso. taasi waxay ka dhigan tahay inay ku dhalanayso ruuxul caalam ama soul of the world, ayna tahay dhambaalkaagii dhulka. ayuu ku soo afmeeray odaygu hadalkiisii. iyadoo markaynu eegno kelmadda nafsul kulliya ama ruuxul caalam Ingiliish ahaanna loo yaqaan soul of the world ay tahay fikrad ay aaminsan yihiin dadka falsafada iyo afkaarta adeegsada inay tahay xidhiidhka caqliyadeed ee ka dhexeeya noolayaasha iyo kownka ama dhulka, ayna tahay shay la xidhiidhsan kownkan sida ruuxdu jidhka ay ula xidhiidhsan tahay. iyadoo markaynu fikirka eegno ay aaminsan yihiin in dhulku yahay makhluuq ama noole leh ruux ama naf. xitaa haddii rabitaankaagu yahay rabitaan safar ama inaad guursato gabadh aabaheed ka ganacsado dharka, ayuu weydiiyey ninkii dhallinyarada ahaa odaygii. odaygiina wuxuu ugu jawaabay, ama raadinta khasnad, waayo nafsul kulliya ama ruuxul caalam waxa ay ka shidaal qaadataa badhaadhaha dadka ama ayaan daradooda, xaasidnimada, qiirada, iyadoo arrinta qudhi ay tahay inuu aadamuhu laasimo ay tahay rumaynta iyo dhammaystirka halyeennimadiisa shakhsiyadeed. marka aad shay rabto inaad rumayso oo aad kaga dhabaysan, dhammaan caalamka oo dhan ayaa kuu kacaya si ay kuugu barbar istaagaan inay kuu rumeeyaan doonistaada. waxoogaa ayay kala aamuseen iyagoo eegaya barxaddii ay fadhiyeen iyo dadkii halkaa marayay. odaygii ayaa mar kale bilaabay hadalka oo yidhi, maxaad adhiga u raacdaa, yacni maxaad adhi jiraha u noqotay? sababtoo ah waxaan jecelahay inaan mar walba safro, ayuu ugu halceliyey ninkii dhallinyarada ahaa. odaygii wuxuu farta ku fiiqay nin iibiya saloolka oo la taagan gees ka mid ah barxadda gaadhi gacan uu badeecadiisan ku iibiyo, wuxuuna ku yidhi, ninkan sidoo kale wuxuu weligii jeclaa inuu safro, gaar ahaan markii uu yaraa, laakiin wuxuu ka doorbiday inuu iibsado gaadhi gacan yar si uu saloolka ugu iibiyo, si uu uga urursado lacag sannado badan. markuu weynaadana wuxuu u safri doonaa Afrika si uu bil u soo joogo. manuuna fahmin inuu qofku awood u leeyahay fulinta iyo gaadhida riyadiisa.
waa inuu noqdaa adhi jir ayuu kor u yidhi isagoo fakaraya ninkii dhalinyarada ahaa. wuu ku fikiray in badan balse kuwa saloolka iibiya ayaa ka shaqsiyad sarreeya adhi jirrada. kuwa iibiya saloolku waxay leeyihiin guryo ay ku gabadaan halka adhi jirradu ay seexdaan xidigaha hoostooda. dadkuna waxay ka fogaadaan inay gabdhahooda u guuriyaan ayuu odaygii ku yidhi. adhi jiruhu wuxuu ka dareemay murugo iyo xanuun dhanka qalbigiisa isagoo ka fikiraya gabadhii ganacsaduhu dhalay, waayo magaalada ay ku nooshahay waxaa hubaal ah in uu joogo nin saloolka iibiya. ugu dambeyntii odaygu wuxuu ku daray hadalkiisii, waxay dadku caadiyan ka aaminsan yihiin kuwa iibiya saloolka iyo adhi jirrada ayaa kaga muhiimsan rumaynta halyeynimadooda shakhsiyadeed. odaygii ayaa buuggii akhriyay wuxuuna ku mashquulay akhriska bog ka mid ah. ninkii adhi jiraha ahaana cabbaar ayuu sugay, kadibna wuxuu uga dhex galay qaabkii isaga markii hore looga kala jaray akhriskiisa wuxuuna ku yidhi odaygii, maxaad waxyaalahan ama hadalladan iigu tidhi ama aad iigu sheegtay?